ilaabin inaad subscribe tiraahdo si aan halkan ugu wada xiriirno. William Gallas ay haddaba shaaca ka qaaday difaac Arsenal ka tirsan oo si weyn ugu baqi jiray kana argagaxi jiray inuu ka hor yimaado xidiga Drogba. Hadad Arsenal u daawatay u fiirsadad Arsenal daawo jirta ciyaaraheeda hal nin baa waxa jiri horta Drogba Arsenal aad u jeclaa jiray. Drogba ilaa hadda mar dambe asoo qaarow oo duqoobay ayuu ka hor yimaaday Arsenal wuu ka dhaliyay malaha Galatasaray uu ciyaaray wuu ka dhaliyay Arsenal Wenger wuxuu yiri Drogba intuu noolyahay mana dhaafay micnaha ya arzu garakaad wuxuu yiri malaha intuuba Drogba nool yahay weegisna ma dhaafayuu leeyahay yani haduuba Drogba nool yahay naga hor yimaado waa naga dhalnaya yani Drogba Arsenal waligood waa isku xaman jiray ileen Drogba marbu Arsenal arka uu ka dhali jiray haddana waxa jiray difaac Arsenal u ciyaara oo aad ugu baqi jiray Drogba ya ma taqaan ninkaas waa ninkii basada diirnaa ee la oran jiray Felipe Sandaros Drogba is taking it well and scores one-on-one Sandaros is all over him Drogba's kept his ground stays on his feet still Drogba ninka aad u baqay jiray markuu Drogba arkaba waa dhididi jiray wanuu ka dhali jiray Drogba gool kooxda Arsenal ninkan markuu ciyaarayna waa jeclaan jiray Drogba yana qarow ku ahaa yani ka cabsiin jiray xidigaha kooxda Arsenal markuu ka hor imaanaya maadaama uu isku darsaday xoog orod iyo dhameystir fiican waxaana uu ahaa gool dhaliye dhameystiran waxaana taas soo bandhigay waqtiyo badan intuu joogay Chelsea dabcan kooxda uu ugu jeclaa inuu ka hor yimaado waxay Arsenal 15 kulan uu la ciyaaray Arsenal tartamada oo dhan waxa uu weeryahanka Ivory Coast ka dhaliyay Arsenal 13 gool buu ka dhaliyay Arsenal 15 ciyaaradu ka hor yimaaday iyadoo kaliya laga badiyay hal kulan oo uu ka hor yimaaday kooxda Arsenal xitaa markuu Arsenal ka hor imaanay ma laga badin jirin Drogba hal jeer baa weligiis laga badiyay Didier markii Didier ku waa jeclaa kuwa kaayo 15 kulanna wuxuu ka dhaliyay 13 gool xataa weligiis hal jeer bay Arsenal guul dar ka soo gaartay William Gallas oo ka garab ciyaaray Drogba isla markaana la qaaday horyaalka Premier League ayaa markaas kadib wajahay dhibaato inuu kubad ka difaacdo markii uu u wareegay waqooyiga London yani uu Arsenal ku biiray isagu Gallas uu ka tagay Chelsea Arsenal buu ku biiray laakiin iminka xidiga reer France ayaa shaaca ka qaaday in xidigii ay difaaca dhexe ka wada ciyaari jireen berigii Arsenal ee Felipe Sandaros inuu si dhab ah ugu baqi jiray inuu ka hor yimaado Drogba waxaana uu ahaa mid isku dardarsama ka hor inta aysan bilaaban ciyaarta wallahi wiil isku darsoomi jiray wiilka ka ay Sandaros haduuba ninka ka hor yimaado yiri asoo hadlay wuxuu yiri Gallas waxaan ogaa Sandaros oo ciyaarta ka hor u baahan inuu wax badan hadlo waxaan arki jiray isagoo dhidida yiri Sandaros ciyaarta ka hor wuu hadla warniyo ninkaas naga ilaaliya asagoo wuu hadli jiray maanta dhanba xataa wuu dhididi jiray dhidid baa ka imaan jiray inuu san dareen fiican ku jirin baan arki jiray wiil markuu ninka Drogba ka hor imaanayo wuxuu sidaas sameyn jiray marka uu ciyaartooyda qaar ka hor imaanayo marka uu ka hor imaanayo Chelsea gaar ahaan Drogba waxa ku dhici jiray argagax waxayba u ekeyd inuu kulanka ciyaarayo ka hor inta aan la gaarinba ciyaartii oo aan la gaarin buu dhididaya qaylinaya cabaadaya argagaxaya marka wuxuu yiri ciyaartii oo la gaarinba ayuuba ninka kan si cawaadi jiray yani Drogba soo ugu baqay darteed nasiib daro marka uu garoonku soo galo waxa uu dhumin jiray awoodiisa ciyaareed yani uu isku darsoomi jiray laakiin marka uu kooxdiisa tababar kula dheelayo wuxuu ahaa mid aad u fiican waxa la yaabay Sandaros markuu ciyaarta uu ciyaaray uu argaxaya laakiin marka tababarka la joogo aad u fiican yahay difaaca reer Switzerland ayaana in ka badan 100 kulan u saftay Arsenal tani markuu ka tagay 2003 mana uusan ku najixin Gunners waxaamaha lagu siiyay Milan iyo Everton waxaanu sanadii 2010 ku biiray kooxda kubadda cagta Fulham kor intaan uu ciyaarin Valencia Aston Villa Grosbach Rangers iyo kooxda Mareykanka hadda la joogo ee Houston Dynamo marka Gallas ayaa ka sheekeeyay in Sandaros uunan weligii iska celin jirin ninka Drogba ah yani wuxuu sheegay Sandaros inuu argagaxi jiray markuu ka hor imaanayo Sandaros markii uu ka hor imaanayo Drogba inuu Sandaros argagaxi jiray oo Drogba ayaana ka dhaliyay Arsenal 15 kun uu ka hor imaaday 13 gool abaadka ka dhamaan jiruuriyo ninkii Sandaros ahaa markuu Drogba ka hor imaanayo Drogba is taking it well and scores one-on-one Sandaros is all over him Drogba's kept his ground stays on his feet still Drogba wakaas arkaysa Sandaros weeyaan Sandaros kaas aad u dhibi jiray Drogba ninkaas arkaysa Sandaros wallahi Drogba waa dhibi jiriyo Sandaros wuxuu ahaa nin basadiir hada xasuusto marbu Drogba isqabtaana wiilka uu argagaxi jiray Gallas wuxuu leeyahay waxaad malaynaysaa wiil ciyaartii oo la ciyaarin ba inuu si bilaabo inuu isku darsoomo
argagax weyn buu ku qabay wiir ninka inuu ku horimaado xataa ciyaarta ka hor uu dhididi jiray waxayna u ekayd buu yiri ciyaartii on la ciyaarinba oo aan la gaarin inuu ninka ka argixi jiray nasiib daro ayuu yiri ninka markuu garoonka soo gal uu dhibtoon jiray wiir Asandros laakiin marka tababarka la joogo aad u fiicnaan jiray Wenger intuu yaabay daragba mar dambe uu Premier League isaga baxay ayaa 2003 camal uu soo noqday wuxuu yimaaday Ingiriiska uu yimaaday isagoo Arsenal ka hor yimaaday haddana annagoo isdhahayna raaye daragba waa ka hor yimaaday Arsenal muu ka dhaliyaa haddana wuu ka dhaliyay markaas Wenger waxa la yiraahdaa see Wenger xitaa way limid ku dhaafaya miya waayilnimo ma han buu yiri intuu nool yahay nama dhaafayo yiri daragba It's Drogba, it's a goal. But I'm not sure if he meant it, but he'll certainly take it. Drogba is onside. Didier Drogba. Chelsea are back on terms. Plenty of blue shirts around. One of them's Drogba, and he scored again. It is a brilliant header, and it might just be enough. May wallahi ninkaas aru ciidamadiisa garabka ku haysan karaba. weeriyahan wuxuu ahaa special oo qaas ah oo dhaliya ah oo ka yaabo waana ninkii Champions ugu horeeyay Chelsea gacanta u galiyay darbadsaag ugu dambeeyay dhaliyay waliba waa ninkii ciyaartii iyo Benchen oo ka adkaan rabto madax ku duubay goolka ma lama heli kara daragbo oo kale maya absolutely wuxuu ahaa weeriyahan shaqadiisa yaqaana Arsenal wuxuu jeclaan jiray waligood basaas u waali jiray hatta difaacooda waa ka dhididka ka keeni jiray oo laga sheekeynaya saakay